bulshada ku ganacsata suuqa togwajaale ayaa ka cabanaysa maamulka degmadaasi sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena Muuse Xuseen Xasan. waxay soo taraya cabashooyinka ka imanaya hooyooyinka ku ganacsada sariibada weyn ee magaalada xuduudeeda togwajaale. cabashooyinkan oo ku aadan maamulka dawladda hoose ee magaalada wajaale kaasi oo ka gaabiyay shaqadii ay qaranka u hayeen isla markaana dhul boob ku haya danta guud ee magaaladaasi. hooyooyinkan ayaa ka cabanaya in kawaankii xoolaha lagu qalayay uu gabaabsi u jiro inuu meesha ka baxo isla markaana la boobo. waa sida ay hadalka u dhigeen. iyasta kale hooyooyinkan ayaa farta ku fiiqay dhibaatada ka dhalan karta ayda oo ku badatay degmadaasi iyo maamulkii shaqada lahaa uu ka gaabiyay. iyagoo amuurahaasi tilmaamaya ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii. dad war u haysan waxa la wixii dan guud ahayd waa la liqay waxa hadhay intii kawaankana waa loo soo jeestay. dawladda hoose xoog baan uga cabanay waxaan hayso wada xumo waxaan hayso kawaankii u dambeeyay kaawow aha oo la naga qaadayo. waxaanu ka cabanaynaa marka u horeysa imika dumar baa ilaaha la naga raro la naga kaxeeyo la naga waxeeyo waxa weey kawaanka nagaale waxaanu leenahay kawaanka aanu cimriga ku soo gaadhnay aanu nahay dadkay dhalay dadkay ay sii dhaleen wax looga saaro inaan la naga taabano shaqo lagu darsan dadka gudubboobka ee cusub ee imika dagaya ee dhuldoonka ee waanu iibsanaynaa ayaa maalin walba na dacweynaya meesha nagaale. haddaanu nahay shicibka togwajaale annagu dumarkii sariimadaanu nahay dawladda hoosaanu ka cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa waxaad yeeshaan muusoona soo danaynayno na soo dayn baan ka cabanaynaa wasiirkaan ka cabanaynaa waayo waxa weeyaan hala noo yimaado hala neego waxaanu qabno in la jajabiyuun dadka maahe waxay qaban hal waxaanu ka cabanaynaa wasiirka maxamed kaahi inuu wax noo qabto wax la nagu yimaaday kawaanka rara qarbuun buu leeyahay sagaal ingiriiski baa gooyay ka awow dhaxal baa noo leeyahay marka waxa weeyi maxay hayday anaga soo gaaro wasiirkaasi si degdeg nooga soo gaaro. annagu waxaanu nahay neefka xoolihii markuu guro waa la kaxeeyaayo meel dheer oo looda irmaaniyo xoolaha irmaanuna wax la cunin baa la geeyaa. markii annagu aan halganay hadday dawladdii siiraanyo tahay iyo hadday tamuusa biixi tahay markaan halgan dheer labadaba u marnay annaga qof dib noo soo deeyay haddaan wajaale shicibkeega nahay oo wax nagu falay horta ma jiro dhammaan shicibka wajaale oo dhammaan. bal iniguba indhihiinna ku mara oo albeerkooyinka togwajaale ka dhisan midba kontonay baa harsanaya mid masaajidka kontonay baa harsanaya. waxay kaleeyihiin nimankan dawladda hoose ka shaqeeyaan haddaad kiyo kugu soo roorayo wax ku dhifato miskiinka maxaad u sheeganaysaa. bal dawladda hoose mara oo inta ay ku wareegsan hooyo indhihiinna kaara muuse bixiya boqorkii waxaa tira noo soo gurmada oo guusha noogu dara. war inagoo isku duuban baan daacad heli karnaay inagoo isku duuban baan dawlad noqon karnaay. si kastaba ha ahaatee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa ka gaabisay inay dhageysato cabashooyinka soo taraya ee ka imanaya hooyooyinka jilicdasan iyadoo bilihii u dambeeyay maamulka wajaale ay cabashada ka dhankay ay soo tarayso. waa Muuse